السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترامب نينك لدهاي وحو كياب صدق إيرانينتي إلا حتى نفترض كشكيان إنها ورياه وحاسي وحجران هذه ما لها هذي وردي ما لها هذي وردي ما لها هذي إلا شرد جرائد يكون قصبنا هذين أرنتها كلية هاي إنك هذان بس وعكر فجر سو وقوى علي عالم كودن إيرانيين نفترض هذا أنا إزدلتها قدونا أرن هاتي أنا كنت ما بقرأ وافاني عليه إلا المهم تقدرنا waxaan kaloo ka hadli doonaa afhayaanka ciidamada Iiraan oo ugu baaqay wadamada muslimiinta guud ahaan caalamka oo dhan in hal military ay sameystaan Iiraan diyaar ay u tahay inay hogaamiso Spain oo markale karbaashaysa Mareykanka waan ka hadli doonaa ayadana waxaan se ku bilaabaynaa arintan dhacday markii ugu horeysay hatta markii ugu horeysay lama dhahayo waligeed hatta lagu ma fakarin ka waran صاروخ إيران كيمت أو لبنان قده هذا الوسوري ذي معناها أرين لا يابله لبنان أي صاروخ إيران كيمت سوري ذي أما قده هذا الوسوري ذي كفرت لبنان أول ما أقول إني سوري ذي صاروخ هاسي نمبر 1 وحال يذكر عساهن ليه مايا أوكي يا جوجو سوري ذي مرك إلى مراكن كلهم أوجي ماشي حسب الله جوجي ولا يا بيه وحا أي نقطي أرين تاريخ قشي باردا سعوتها سيد لليهي maxaa yeelay markii ugu horeysay saaruukh lagu soo rido gudaha Lubnaan shaki waxa jira dhahaya ma laga yaabaa Israa'iil maadaama ciidamadeeda ay muddooyinkii ugu dambeysay dhan yani ay gudaha Lubnaan u soo galayeen tuulo ka dambeysay u soo siqaayeen in tuulooyinkaasi qaarkooda ay ku rakibteen qalabkii macnaha lagu soo riday sawaariikhda saasoo kale yani kulli shaki badan jira ما مريكان فرسما كلا إيريدا يسوع كسمية ما دولة لبنان سي هوس يعني هي قلب كاسي هذيك آخرين يسوع مريكان كيمد ماش أو أين يعني فسحين إن الشيخ تصاصو كلا المهم شكيب بدنا نجرا لكن كل وأركينا وحي أرين تاكسو كردا وأرين لا يابله مدة كلا واحد دوت كتها أنت هاي العقدة أي إيران دول صارتي مراكبتها وقتها معناها مركا حافظ هذا أي تهي واحد دجالك وكسعده سنوات أجبنت هاي وهذا جوري هذا إنه دجال كسرعة واد قرني سريع واتدا إلا ذا يعني ناس شمجرته رفض دباتو قف جوري يسلو دجال لما أيوه يعني عدة لا دجال لما يسلو جوري هذا نود ويحي وقرن مرة الله في إيران دبا حيسته لكن لنا عكلة إيران ما أنت إذا بندر فدي سمحها حد واحد والبو جوري الأكل سمرج إذا كنتروشه وهكذا مراكبتي لا مليون إيوه 6 مليون إيوه علامتك العيا كسوركتي مراكب تخاله مركو حيليين باشا حوغا لعقتها way badan tahay canshuur awal laga qaadi jiray laakiin inta lama ekeen hadda waa xaalad khaas ah magacyadooda inay soo diiwaan galiyaan ay saacado ka hor soo macnaha codsadaan meeshay ka yimaadeen meeshay u socdaan inta saaran intay macnaha ibn aadan yani inta oo dhan kadib lacag hadana bixinayaan arintaas dooda ka taagan kullu wixii soo kordhan arkaynaa taanata dhinaca kale Spain waxay Mareykanka dabcan uga hor imaatay ويقنينيسا سيان عادي هاي دقال كمالنتي لقادر ربي كهر حتى إسبين مريكا سوقون صناعيين سيئها تبهده رئيس وزاره إسبين ما أنت هذا كيو برلمان كجيري وحجري مريكا كوحو هرتا خلخل كهايا أو قرينايا بريق الحودن الدون كان وحو كسمي فوضو معقول ما أهان مركا إن مريكا أرنتا الله أقلاده إن الدون كشرعي يسو إساقتونتو وحو دونا سمايو wuxuu leeyahay bariga dhexe ee degnaa wadamadii khaliijka ee xasiloona ee barwaaqada iyo nimcada ku dhex jiray maanta dhibaatay ku jiraan dhibaataas ay isuma keen gacantooda kuma raadsan Mareykanka ka dambeeya caalamkii shidaalkiisoo dhan cirkaas oo ku dhagay isu socodkii ganacsiga dhan kor ay u sii socdaa cid kale ma keen cidna ma sameeynin Joyce marka cid ka macnaha lahayd manahan Mareykanka ka dambeeya wuxuu leeyahay sharciyada caalamka iyo dawladaha hadeen arinta ka hadlin oo aan anaga hadda tan ka dhidin wuxuu leeyahay cid ka dhidinaysa mana cid ka hadlaysa ma marka qof walba intuu aamusi lahayo leeyahay macnaha in laga hadla arintan la address gareey ay tahay macnaha halkaas aan watayna ayadana waxaan aadaya أولها وآخرة ثم تضحي بسائر البلدان في سبيل ذلك ولا نحتاج إلى دولة تنظر إلى المسلمين على أنهم كائنات لا قيمة لها فلا ترى فيهم إلا ما تختزنه أرضهم من ثروات ونفط وغاز فأي خير جلبته لكم أمريكا وقواعدها في المنطقة marka dhageysanayso waxaad u malaysaa khudbad inuu jeedinayo waa eegkii Iiraan khaatamul anbiyaa
oo afcali horta ku hadlaaya dalaad waa af ingiriis ku hadla marka uu yiri hey Trump you are fired hey Trump waa lagu casiriyay macnaha shaqada laga ciriyay maanta afcali uu ku hadlaaya wuxuu leeyahay horta khaliijka wala hadlay saldhigyada Mareykanka ee ku yaala xaafadihiina guryihiina maxay idin soo kordhiyeen aan ka ahayn burbur iyo rafaadka u jeedaan taada kale ma u baahannahay uu yiri quwado sida Mareykanka oo kale oo intaas oo kiiloomitir jira inay yimaadaan ay ammaankeena sugaan ay dhahaan ayadoo ammaankeena sugayn aadna ogtihiin waxay meesha u joogaan kaliya inay tahay Israa'iil inay difaacaan sida hadda idinku dhacdan oo arkaysaano hal maanta yacnihi ay idinka difaacday inuu jirin oo Israa'iil kaliya ay tahay cid ay u dhimanayso waxa ma idin sheegaa uu yiri xalka kaliya ee ugu wanaagsan waxaan aan kaga bixi karno waa hal shay in ciidamada dhisano ciidamadaasoo awood badan mandiqadaana ayaga ka taliya cid agtooda mari kartana jirin annagana diyaar waxaan una ciidamadaas inaan hogaamino haddii arrintaa diyaara u tihiin diyaaran una haddaan bilaabaynaa cid la sugaayo ma lahan waa ujeedaa maanta adduunka meesha u maraayo wadamada carabtow wadamada muslimiintow inta maalin mid loo imaan lahaa ilaan waxay noo arkaan uu yidhi gaar ahaan idinka idin arkaan wax aanan qiimo lahayn alaabtaasi adinka alaabta idin dhaanta waadna arkaysaan sida maanta hee oo Mareykan idinku garbaxayo oo korkiina inta ku dagaalamo wixii la soo tuuro oo idinka gabanayo difaacii hatta idinka qaatay almuhim hadal weyn dheer ayuu ahaa arintan waa laga khilna waxa leeyahay horta ma laga yaabaa in arinta ay dhacdo falanqayaasho dhan waxay isku raacsan yihiin hal arin adii maxay kula tahay inay dhici karto in kale in wadamadaasi soo yimaadaan kada Iiraan ay hogaamiso say kula tahay macquul ma tahay dhici kartaa jawaabtaada kulay falanqayaasha inay israacayaan ama ay isku mid noqonayaan aan fiirin falanqayaasha dhammaan intaan arkay ilaa 7 meelahaas waxay leeyihiin ma dhici karto waa been macquul xataa ma Sacuudiga ogolaana Iiraan ku hogaamiso waa wali ma Turkiga ogolaana Iiraan ku hogaamiso ma Pakistan ogolaana Iiraan ku hogaamiso maya bidaasi hogaanka ahaan in la midoobo hal ciidan la sameeyo macquul ma maxay yeelay dawladaha badankooda Mareykanka u taliya wuxuuna Mareykanka sameyn ama sameey dhihin ma sameyn karaan say macquul arinta ku tahay sida soo kala tan halkaas aan tageynaa dhinaca kale waxaa dood ka taagan tahay bisha Mareykanka uu yiri xabajoojin ayaa la sameynaa anaga Iiraan oo qodobada aad ogeedeen oo macnaha soo jeediyay Israa'iiltu waxay leeyihiin in Mareykanka uu Israa'iil aanteeda go'aanka iska gaaro oo sidaas sameeyo horta ko sax maahan labo waa intaas oo tanaasulaad ah macnaha nuclear madina idin sameynaya macnaha qawatinta idin ka qaadaya sawaariikhdina laga hadlaayo maxay tahay Israa'iiltu yaabayeen waxa ka sii daran marka Trump uu soo boodo wuxuu yiri mataqaanaa Iran agreed waxay ogolaatay in ay ka tanaasusho dhammaan 100% damci ahaa inay nuclear samaysato waa hadalka Trump arintaasi iyo arimihii badnaa ee wada hadalna noo socdo oo intay ka dhacday Iran way yaabtay adduunka horta waa taw isku dardarsamo la yaab mugta Iran afterkeeda yaabtay marka oo shakisay oo kala shakisay afhayeenkii marka maanta soo hadlay wuxuu yiri أفعلوا نسي أخرى في إنجليزي نسي أخرى هرتا في إنجليزي أو هاي معناها US is negotiating with itself أيضا هنا وضح لسه معناها أمريكا تتفاوض مع نفسها أمريكان كي أيضا وضع يعني هشيس قلاي أو وضع هذا الأصعد إلا أن إيران وحي تاجنت أنا ما قرين أمريكا وحي تاجي هي ماشى صونو مرايا ماشى سامرينا بل هذا كان أوفيرسه وحوليه معناها waxay ban ugu raacday Iran inay ka tanaasusho waligeed inaan samaysan niyadana ka saarto nuclearka Iran waxay taaganta war wax aan wada hadalnay ma jirto asaa maalin walba erga soo dira qodobo soo qora waan aragnaa halkaas aan ka fiirinaa shuruudaheena halka taagan magdhow in la siiyo Mareykan oo mandiqada ka baxo war balaayay wadata aydan oo tiradii ka batay ugu dambeyn markay aragtay in xaalad ay qasan tahay ayay tiri oo hadan ogaanay arinta isdaji caalamo Iran oo dadkeena isdajiya mas'uuliyiintu isdajiyan la kala shakinin hayhe waxaan ogaanay that America is negotiating with itself ayaga on ayaa wada hadalka u socda Mareykan waa wada hadlaya Iran kuma jirto si bahashaan in shakiya meesha uga baxo almuhim arintaasi waxay noqotay meme macnaha waxa lagu qosqoslo oo kale ay noqotay qofa kaartun wuxuu soo qaatay Mareykanka Donald Trump ag fadhiya wada hadlaya macnaha yaanihi Donald Trump gaan Iran ay u qoran kan USA ay laba koox oo calaamada Mareykanka wata oo iska soo horjeeda ayagana saas oo kale qolo kala saas soo qaatay oo dhahaya qoladana Iran ay saareen qoladana waxay saareen Mareykan ay saareen laakiin kulliga wada Mareykan calaamada Mareykanka wada xiran macnaha Trump ujidiisna way leeyihiin
marka almuhim meeshaas ay maraysaa in maraykankii macnaha uu asaga isla hadlaayo ilaan asoo iiraan la hadlin go-aan soo gaaro wuxuu leeyahay go-aankaasaan qaadanay waa isku raacnay iyo kada ay wixii la midka almuhim say kula tahay intaasaan kusoo gabagaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu